warbixintan waxaynu markan ku eegi doonaa warshada wax soo saarka beedka digaaga Hormuud Poultry Farm magaalada Boorama. marka la joogo deegaanada gobolka Awdal way yartay waxyaabaha loo iibgeeyo gobolada Somaliland iyo wadamada jaarka maadaama gobolku xilligan ka aradan yahay dhanka dekedaha iyo reeboodada waxa kaliya la iibgeeyo gobolada dalka iyo wadamada jaarka waxa kamid ah saddex waxyaabood oo kamid yahay beedka digaaga. warshada wax soo saarka beedka digaaga ee Hormuud Poultry Farm waxa ku dhiiraday oo bariga magaalada Boorama ka hirgeliyay ganacsada u dhashay deegaanka markii hore qurba joog waana warshada ugu weyn ee dhanka wax soo saarka beedka digaaga ee deegaanada Somaliland waana warshada kaliya ee ka jirta deegaanada galbeedka waxaana goobtani lagu xanaanayaa digaag kor u dhaafaya 30,000 waxaanu booqanay xaruntani si aan ugu kuurgalno waxyaabaha u gaarka warshada wax soo saarka beedka digaaga ee Hormuud Poultry Farm waana hal abuur ganacsi oo loo dhabar adeegay waxaana uu shaqo abuur noqday 100 qof. marka haday hilibkiisa noqoto iyo haday beedkiisa noqotoba labaduba aad iyo aad bay muhiim yihiin marka xaq caruureed xaq hooyo xaq dad waaweyn xitaa dadka ma taqaanaa da'da ee la rabo in la kabo waxyaabaha lagu kabay ayuu kamid yahay. digaagu waa shimbiraha ugu muhiimsan ee Soomaalida iyo dadyoga kale ee caalamku ay dhaqdaan iyadoo hilibka beedka ay quutaan wana cunooyinka nafaqada aan laga maarmi karin. intii aanu ku sugnayn xaruntan waxaanu la sheekaysanay Dr. Maadi Cali Maxamuud Meedhane oo dhakhtar u qaabilsan daaweynta iyo badqabka xaruntani lagu xanaaneeyo digaaga ee Hormuud Poultry Farm waxaana uu noogu warbixiyay maraaxilkii kala duwan ee goobtan ay soo martay iyo qaabka loo xanaaneeyo digaagan. shirkadan digaaga waxaa la aasaasay horaantii 2016 ama 2016 mudada laga joogo 7 sano ka hor ayaa la aasaasay waxaana lagu aasaasay bilowgii baahi ka timiday magaalada Boorama gaar ahaan warshadaha sameeya beedka oo inta badan uu beedku uga yimayn jiray Ethiopia beedkaas oo ahaa beed aan wanaagsanayn oo inta badan kala badh qofku markuu soo iibsado kala badh isagoo xumaada soo gaari jiray magaalada baahidaas ka timiday darteed baa loo aasaasay. bilowgii waxaa lagu aasaasay hal yar oo hangar oo aad u yar oo naqis oo qaadiyay 2,000 meelahaasi ilaa 3,000 inta wixii ka dambeysana maalin ka dambaysa way sii kordhaysay ama way sii weynaanaysay sida aan hore u sheegnayba waxay ku taalaa magaalada Boorama gaar ahaan waxay ku taalaa bariga magaalada Boorama meeshii la oran jiray Dareemacaanay ku taalaa. hadda waxay ka kooban tahay 5 hangar oo waaweyn ama maxaan ku raadayay guriyo 5 guri oo waaweyn oo midkiiba uu tira ahaan uu ku jiro cadad ahaan qiyaas ahaan uu ku jiro 6,500 ilaa 7,000 inta u dhaxaysa. haddii aad isku dhufato waxay ku dhawaanaysaa ilaa 4,500 xabbo meelahaas inay ku jiraan. qadarka inta laga wad garan kartaa maamulkooda iyo maareyntooda iyo ilaalintooda hawl adag weeyaan laakiin waxaan ku maamulnaa oo aan ku ilaalinaa khibrad aan u leenahay digaaga iyo ilaalintooda. bilowga maamulka marka laga hadlayo horta digaaga maamulidooda waxa ugu muhiimsan waa raashinka ugu muhiimsan waxaan ku ilaalinaa horta raashinkii loogu talagalay in la siiyo haday noqoto caafimaad iyo haday noqoto nafaqo dibaha nafaqaystaan iyo haday noqoto sameyntii ukunta la sameeyay waxa u baahnaayeen oo dhan ba la siiyaa. haddaad sida ka muuqata markaan hawska gudihiisa ama guriga gudihiisa hangar kasta wuxuu leeyahay ama guri kasta wuxuu leeyahay wuxuu ka kooban yahay meelo loogu talagalay digaagu inay biyaha ka cabaan meelo loogu talagalay digaagu inay cuntada ka cunaan meelo loogu talagalay digaagu inay ku dhalaan iyo qaybta loogu talagalay digaagu inay ku raaxaystaan. intaaba waan ku ilaalinaa waxyaabaha ku ilaalinay kamid tahay waana waxyaabaha loo baahan yahay markaad rabto digaaga inaad ka hesho nafcigii loogu talagalay ama beedka loogu talagalay inaad hadaad ugu talagasho hadaad rabto inaad waxaas oo dhan hagaajiso taasaa kow ka ah ilaalintooda iyo maad aragtay daryeeladooda. talabaadna waa saan sheegay waa cuntada ta saddexaadna waxa weeyaan ugu muhiimsan waa caafimaadkooda waxaan ku ilaalinaa qaabab kala duwan. waxa ugu muhiimsan lambar 1 ka ah talaalka in digaaga laga talaalo xanuun kasta oo ka jira ama ku ah degan dhulkaan deganahay Soomaalidu degto xanuuno badan baa inta badan digaag ku dhaca haday noqoto virus haday noqoto bacteria haday noqoto parasite cayaanada xanuunada ku dhaca way fara badan yihiin kuwaasaan horta bilowga ka talaalnaa oo kuwa laga talaalo waxa ugu muhiimsan viruska oo inta badan aanan dawo lahayn. waxa kaloo ku ilaalinaa in si joogto ah loo soo dhaxmaro digaaga gelin hore iyo gelin dambe
iyo habeenkiiba si loo eego ta digaagadda xanuunsanaysa ku dhex jirta looga dhex saaro haddii cilad kale ay jirto la ilaaliyo laga daweeyo ama maxaan ku dhahdaayay laga hortago intaanay faafin oo ayna fidin intaas qaabkaas lagu ilaaliyaa waxa kale oo ku ilaalinaa tababarka shaqaalaha ka shaqeeya meesha gudaha ka shaqeeya hangarka oo iyaguna aan ku tababarno inay kala saaraan digaagadda teeda caafimaad qabta iyo teeda maxaan ku dhahday dhib ku soo socota ama xanuun ha noqoto ama wax kale ha noqotay doctor ugu dambeyntii goobtiina maadaama ay tahay goob aad u ballaaran isla markaana tiin warshada ugu weyn xagga wax soo saarta beedka iyo digaaga ee ku taala deegaanada Soomaaliland shaqaaleynta laga ayaa ka howlgala shaqaale waa kuwa rasmi ah oo meesha jooga oo si rasmi ah uga shaqeeya qaarna waa qaar aan rasmi ahayn oo waxa la yiraahdaa qaarna direct waa la yiraahdaa qaarna indirect yani qaar si direct uga shaqeeyaan oo dhex joogan meesha qaarna indirect uga shaqeeyaan oo faa'iidada yani isbeedka la soo saaro ayay faa'iido badan ka helaan qolada nooga shaqeysa suuqgeynta oo kale oo iyagu beedka iibiya dadka laga iibiyo beedka iyaguna ay kamid yihiin bakhaarada oo iyaguna ka sii iibiyo oo ka faa'iido oo dukaanadii waxa ka iibiya iyo dukaanada iyaguna dadka shacabka ka iibiya marka shaqaaluhu labada nooc buu qaybsamaya kuwa rasmiya iyo kuwa aan rasmi ahayn oo si indirect wax uga faa'iida intaasi kadib waxaan dhankiisa hor dhignay faa'iidada uu dhanka caafimaadka u leeyahay beedka iyo hilibka digaagu Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed ayaa kamid ah dhakhaatiirta waaweyn ee reer Soomaaliland jirko qayirmay weeyi sababta macaanka iyo dhiigkarka iyo xanuunada noocaas oo kale ee chronic disease la yiraahdo inta badan waxyaabaha aan la yiraahdo ma ka hoskarayaan oo ma leh cholesterol iyo waxyaabaha ka sheekeeyaan malaha la yiraahdo weeyi marka aad iyo aad uu digaagu faa'iido badan yahay walba quraankeena walax madiir meeshtay ku arko dawaa shimbirihi inoo shimbiraha cunama ku ilayna oo digaaga weeyi marka haddii hilibkiisa noqoto iyo haddii beedkiisa noqotoba labaduba aad iyo aad bay muhiim yihiin marka xag caruureed xag hooyo xag dad waaweyn xitaa dadka ma taqaanaa da'da ee la rabo in la kabo waxyaabaha lagu kabayo ayuu ka mid yahay dhalinyarada sportiska ee murqahooga iyo wixii la islooyay aad buu muhiim ugu yahay dhinac walba maxamed taqaano digaagu muhiim buu ka yahay innaga culture-keena dhaqankeena Soomaalida markaan dib ugu noqono innaga caaniyo hilib baa ku jira xoolaad labadan bay noogu jiraan kalluunka xitaa aad inooguma jiro digaagu aad inooguma jiro laakiin waxyaabaha raqiiskana ah si fudud loo heli karayo si fudud loo dhaqan karayo kamid yihiin maanta caalamka bani aadamku markuu batay lama iibsan karo hilibkii xoolaha way xooluhu way dhamaanayaan haddii la yiraahdo maanta ummadda meesha ay 20 milyan ku nool ama 100 milyan ku nool maalmo hilib xoolaha la cuno والله وحيانا هيستان سنة بك كسو بحيان ولا كنترول حتى هذا انت ويجي مالها لا قالوا انت كلا ولا جوجيا واي سي xoolaha loo ilaaliyo isagoo production inta warshay inta la soo saaro millions bamaanikay la soo saari karaya oo waxyaabo si fudud lagu soo saaran karayo nutrition koogna uu dhameystiran yahay qofka faqiirka iyo qofka tijaarka ay wada heli karayaan idin waan dhiirigelinayaa idinkan aad baan ugu mahadcelinayaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعمران حسين آذن ورك تلفزيون كMM TV بورما